mahadsantihiin waxaa kaloo mahadsan dadkii isxilqaamay ee shirku soo abaabulay ee fursadda qaadda runtii miisaan waxaan halkan idiin soo bandhigayaa malaawo aragtee kuwa la yidhaahdo miisaanka maansada soomaaliyeed wuu yaalaa macrafka waa qur-aankii cabdillaahi duniye guye oo kunaanay waxay araali haddaba iyagaan hordhac idinka siinayaa oo aan dib u noqonayaa boogay siduu kiiyey sanadkii 2007 anigoo safar noora oo English major ayaa waxaa naloo dhigay the meter of English policy sida kalay ingiriisi policy markaasaa markii aan miisaankii naloo dhigay umarin oo gabayga Soomaaliga waa tan laleeyahay markuu odaygu maqo ama abwaan waararkaa laaxiibaa ku jira ama uga waa jiran yahay gabayga Soomaaliga wuxuu yeelin waayeysa تيجي عاد بلودي هي مرحلة دي أي كل صوم هي سيدات كو أساس تبى مركه هرتش على هاي إن أبنو جورن. سيدا عملين شيء مثلا presentation كي بقية خطوات كي أنا جو إنجليش ميجرا مرتي كبير إنجليزي تناولي نت إنسان أياس آشة محاجة كبير الصومالي ومن إنسان يلون وهاي السؤال تبغى سؤال شيء يجي تاجن لأبي كانت بتشرا إمام السيف مكة وقت مهلين وايو سينير كيبر باكوريسا بروجكت باكوريسا مكي أنا سامع دي لفولك بحي مكة سام وقت لوح أنا إنجليش ميجر بانها ماث ماينر تقوى أور كومبينيشن بيجيبها وأنا وحكمتي إذا أبي مساك وحسابتي يؤفكي عن برني عن بقي لبضي بعد كابي ويهدار كان توج المساك مع صدق جري وقوح كسر مسيني مثلا هوتسكي وتطبع ألم هو سيل وحيديس بالقوة تطبع ألم وشنس غير marka de xisaabta waxa lagu qaataa course leeyahay probability xisaabta iga caawisay in aan xag tirada ka helo iyo de afkii oo aan garano marka 2 sano iyo googo ayaa igu qaadatay in aan gabayga miisaankiisa helo marka waxaan dhameeyay 1907 magaalada Marka لكن وقتها وقرن كرتان وحل استعمال الكمبيوتر كان يوحاسم الجرينة هاي راي كبالو رجري مركا انتي ان تايب راي كبالو دوني ايا وقتي وقعتي سيراسا دمات لحية تضراتكي انا دميو قراشكي يو تاقريو اي إذا وقفيت الجبل كوجوه بي
actually 7 كيبان لمن تيجي بيكو أركيزين قريبي عمر حاجة آدم عن كأخير ma jirtaa in dhowaan laydiin garnaqay adiga iyo maxamed xaashi dhamac gaariyo oo miisaanka maansada la sheegay inaad isku qabsateen waxa la yidhi niman jooga Norway ayaa yidhi war bal waanu eegaynaa hawsha waxaanay noqotay nimankaasi inaanay niman aqoon u lahayn ay noqdeen niman aan aqoon u lahayn suugaantada waayo waxa qoran iyo waxa jira may akhriyeen markhaatiyadii ogaa ee aanu qabsannay oo qaar nool yihiin oo imaka aan tusi karo John William Johnson oo kale wuxuu yidhi rag badan waxay yidhaahdeen Faalmo Axmed Caalin oo ahayd gudoomiyaha qaybta dhaqaalaha ee jaamacadda ummadda oo buugga iga iibsatay oo qirtay markaa guddiga Oslo gebigeeduba waxay ahayd xidigtii October ee gaariye wax ku publish-gareeyay annagu date of publication baanu ka hadlaynaa laakiin printed script wax qoran waxani mucday leeyihiin content-ka yamaa baaxad weyn yamaa research dhaba ah iyagu sheekada bani marka waxaad leedahay iyagoo aan waxaad isku hayseenba aan aad ugu daadin uba xukun iska rideen warqad bameeyay kuma qanacsan maalintii ka sheegtay waaniga wardheer news ku qoray article-ka waa ka eegi kartaa ninka wardheer news ee aan nal and void kaga dhigay حد أقبش مركز براء إنه يدنبح الحاديان حبيبة أنا يحين كوا حب من كهية waxaanu is'aal ay yiraahdeen annagu waxaanu eegaynaa qodobka taariikhda yaa hor daabacay taana ma diidaniyo daabacaadda wax digta October markaa idin ma xukun baan kala ridaynaa waan kareegaynaa bal wax printiga iyo shaqadan asalkeedu waxa weeye taa Abdillah سؤال كويديو أبو وحا شيء أنا كوكا عين رجع إذا دحكة أخذنا أنا يا هين